xaaskii hore ee CK oo la safatay Finash Wisby iyadoo la ogyahay in ay colaad fara badan ka dhaxayso fanaankaas iyo youtuberkaas labada qof oo la ogyahay in colaadooda ay gaarsiisan tahay meel aad iyo aad u heersareeyo ama meel aad iyo aad u xun ay gaarsiisan tahay iyada haddana la safatay Wisby marka maxaa kalifay ama waxa ka hadli doonaa waxyaabaha kalifay ama waxyaabaha sababay in la safato gabadhaas ama gabadhaas ay kala tageen CK in la sifato Wisby maxaa kalifay sababinkaas ayaan ka sheekay doonaa marka hadii aan faahfaahinta kalena ama waxyaabaha kalifay in ay labaduba ku kala tageen iyada iyo CK waqtiyo kooban ama waqti fara badan ayna isla joogin ama waqti fara badan aan laga joogin guurkooda bilooyin kooban isla joogin ilaa adiga 2 months ilaa 1 month marka waxaa la dhihi karaa ama waxyaabaha la dhihi karo in ay labadu soo horjeesato ama ay ku taageerto Wisby waxay kamid tahay colaadada labaduba ka dhaxayso ama labaduba colaadka ka dhaxayso ama colaadaha ay labadu ku kala tageen marka wuxuu soo qaaday Wisby hees uu ku karbaashayo taas ay ka soo duubtay clip ama heesta inta uu leeyahay Butuulkeeya clip dambe ka soo duubatay dhanka background soo dhiganayso iyadana ku karbaashiso marka waxa dhici karna taasna waa arin aad iyo aad looga fiican yahay sababtay tahay qof aad kala tagteen ama qof waqti hore xiriir hadii naga dhaxeeyay ama laba wada kala martiin in aad soo karbaashto ama wax oo muuqaal hees loo sameeyay ama hees isii ku socoto inta clips ka soo duubto ku karbaashto dad fara badan baa ka filciliyay ama dad badan oo social media ama dadka commentayaasha reer comment ay dad fara badan baa ka filciliyay marka dad qof walba si bay u arkaysay ama qof walba nooc bay u fiirinaysay qof walbana fikradeeda ay ku soo qoraysay dhanka commentiga marka waa dad fara badan community-da aqarna way ku jiraan oo dhaxan wax u keenaa maseer u geeyaa oo waxaan waa wax ay maseerkeeda ama waxay maseerto way marka waxaan dhihi karnaa si dila firshin waa la dhihi karaa si dila firshin waa la dhihi karaa ama colaado kala iska jiro ama waxa jiro qarsoon oo aniga iyaga naga qarsoon dadkaas community-ga labaduba oo ka dhaxeeyo marka dadka qof walba waxay qof walba si bay u fiirinaysaa ama qof walba si ay fikradeeda ay la tahay ku soo qorayso community-ga isagana wuxuu soo qaaday hees karbaasha heestaas oo Cabtoy Boy heestaas oo soo baxday ama taalo saacado kooban heestaas oo inaba caadi noqotay ama qaabka oo isaga oo u duubay ama qaabka riyada ama heestaas waa hees karbash heestaas maan hees oo si sarbeeba ama hees waxa jirto markan waa heestan hees isiga ku socoto si toos oo ugu soconayso oo erayada idil karbash ayuu ka dhigayaa marka qof walba clipkaas ama muuqaaladaas ama heestaas dad fara badan baa ka falcelisay ama Soomaali idil dadka social media aad ugu falceliyay marka Cabtoy Boy baa la تيور Wisby soo qaadane ciwaankeedu waxay ahayd in darbiyada qabso xasaas ay ahayd marka waana hees labada hees hadii la isbarbar dhigo ama labaduba aad la isku barbar dhigo waa wax farq badan u dhaxeeyo ka muuqaalkeen halkaas ay ku sameynaa oo kuma sintiin daawashada muuqaalkan fadlan anigu cusubtan ha ku leeyahay subscribe saar kamid noqo kumanaanka kuna YouTube keena ku xiran next video iyo waxaan ku leeyahay bye bye